جدك كاسرو وشاد كنت وسيو وكان كلا صدا قربي وحدان تعلقني قدقو بحكي كان كيك لدقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Somaliland هنولاتو Somaliland هنولاتو عدو قيدة الله جبيو إننا إلهي طريقة في عن يوغوش إنو سعوتا هاي نوغسي ولو عاو واهبين آدو قاليا وحا marka hore jecelahay inaynu dhahno ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland noolaada xoog loo yiraahdo noolaada ciidanka gooja cad jooga noolaada waligii jiro jooga inta hadan ka soo noqdo waxaan jecelahay caawa waxa inala joogta adna aadan ismaaciil doctor adna qof kasta oo Soomaaliland waxa ay gasho iyo waxa ay qaranka u soo qabatay ayaynu halkan kaga marxaati fureynaa aad baanad adna u nasiib badan tahay adiga oo nool inaad baqasho jacaylka lagu jecel yahay waana waxa qof kasta ku duceysto waxaan jeclahay oo kale halkan inaan uga mahadnaqo saaxiibkay mami best friend Mikael Torstensson jag kunde inte genomföra mitt uppdrag utan dig. Det är en stor ära att ha dig sida vid sida och jobba för Somaliland med dig Mikael Torstensson. Runt till صدقني عشاء والدربيين شقاءات يآدوا بالعرن مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم waxaan kaloo halkan jecelahay inaan uga mahadnaqo gudoomiyaha dalada guud ee kulmisa jaarida Soomaaliland Mustafa Abdi Ismaaciil iyo gudigiisa oo halkan Cali inala joogan dhamaantood waxa leeyahay garbaha xafiisku uu ku duulo shaqada aan wado ayuu ka koob yahay marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan jecelahay kale halkan aan uga mahad celiyo gudoomiyaha jaaliyadda caasimadan Stockholm Khadar Keli oo leeyahay walaal shaqadii aad qabatay ilaahay ka jaasaasiyo idinku inaad ogaataan kuna kan quruxda badan caawas bunimi inuu qayb weyn ka soo qaatay waxa aan si fiican u danaynayaa gudidii la shaqeynaysay Khadar oo aan jecelahay inaan ka magac dhabo Foosi ninka halka jooga Foosi soo dhawow waxaan jecelahay inaad aad sacabka ugu tuntaan isaga oo lokaalka inaan caawa joogno isaga ayaa inoo suurtageliyay aad iyo aad waxaan jecelahay kale guddigii la shaqeynaysay ee hawsha soo waday iyagana inaan si gaar ah ugu mahad celiyo oo ay ka mid yihiin gabdhaha Ugbaad Maxamed Xarbi Cabdi Wahaab Xuseen Abaadir dhammaantood inta aan magacooda sheegin hablaha dhammaantood waxa la aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloo jeclahay inaan halkan uga mahadnaqo Hodan Cumar Toosh oo runtii iyaduna qayb weyn halkan ay markay ka hogaaminaysay waxa aynu cunaynay hawshan ay noo qabatay iyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyada hoggaankeeda marka runtii qofkii waqti hayaaba ha contribute ha gaadha meesheeda waxaan kaloo halkan jecelahay inaan uga mahadnaqo adnadeena Sweden Faadmo Raaxa Ciro oo aan leeyahay waxaan filayaa maanta aadna dhamay raacin laakiin qadadii ay noo samaysay anagii waftiga runtii waxay lahayd xasuusteeda iyo qadarinteeda iyada groupkeeda marka waxaan leeyahay ilaahay ka raaliyo inta markaan ka soo gudbo waxaan nala jooga gudoomiyaashii xisbiyada إذا عاو فرحت وين بيتهاي ما دام عندك شغله صدق ذي حسب قرن
jaaliyadihii haweenkii odayaashii inaanu halkan ku dhannahay taasina waxa ay noo muujinaysaa annagu ra-iisul nahay inaanu midnimadii Somaliland halkan message uga gudbinayno dalkii hooyo marka walaalkay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdirasaaq Daahir aad iyo aad baan walaal ugu faraxsanahay inaad xafladdan nagala soo qayb qaadato gudoomiyaha xisbiga Ucud Dr. Ibrahim Ali Kirix aad iyo aad baan isaga ugu mahadnaqayaa waxaan sidoo kale ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Cabdikariin Axmed Warsame oon adigana aad iyo aad kaaga mahad celinayo waxa aan intaaba ka badan iskale haweenweynaha Somaliland ee halkan jooga aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa runtiina wax ka soo qabanna maxay in ka koobnahay waxa iyaguna aan laga tagi karin oo warsidaheena ah saxaafadda halkan inala joogta oo ah Home Cable TV Bulsha TV iyo qaar kale badan oo runtii halganka iyaguna ka kow ah halganku maaha ka askariga kaliya halganku maaha ka siyaasadda halganku laftigiisu saxaafadda ku jira marka walaalkay Yuusuf oo halkaas la soo jooga aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii hawsha qaranka aad kula jirto waxaan leenahay hambalyo sacabka loo tago برخت عبد الله محمد هون كيبل تي في مقالة ستوكهولم ودنكا سويدن